xisbiga haya talada jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland iyo kulmiye iyo labada mucaaradka ah ee u codiya wadani ayaa maanta ku kala kacay wadahadal ay ku gorfaynayeen sidii loo dhaqan gelin lahaa taladii ay hore u soo jeediyeen guddidii dhexdhexaadinta ee khilaafka dhex yaallay xisbiyadu ay ka odeeyeen ee qodobada ay ka soo saareen xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay inay isku afgaran waayeen sidii arrintaa loo dhaqan gelin lahaa wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad ayaa haddaba shirkaas markii ay ku kala kaceen xisbiyada iyo madaxdooduba waxa uu heleelay oo uu waraysi la yeeshay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo uu weydiiyay bal hadda halka sartu ka quruntay maanta 13 shir ayaa maanta markaan sameynay waxaanu warramade waqtigii waa dhamaaday maxaa qabateen intii muddada qabsateen madaxweyne waxaan qabanay ma jirto arrintu way nagala balaaratay waxaan idin qirnaa inaan magaranaysaa guddidaasi aanay guddi qaban karta ahayn marka laga eego xagga tayada iyo xagga experience way aragnimada way daqaad go'aankina waan qaadanay laakiin sharci ma hayno sharci nasiya sharci ma hayno marka maxay ka dhigantay macnaheedu sharci ku kala jiro ma hayno waxaan yaano marka caawiyo saan ku caawinayo loo tago reerahoodii waxaan aqli gelin waxaad ma jirtay madaxweynaha haye arrintii u yeero xataa is'asila wax kala farsamay sida hore loo sameeyay madaxweynaha hore iga geysana magaano geesimay halkaas uu istaagay madaxweyne Faruq taagay arrintii go'aankii waan ogolay mana ogolay isku dhex jira way macnii ogolay afka laakiin ficil ahaan marka idinka waad ka timaadeen warbaahintan waad la hadasheen maxaa idinka idin xiga go'aan iyo talaabo waanu ku isku noqonaynaa insha Allah taala guddidiina waanu wargelinna laakiin anu Faysalaana iyo xusbaan waxa la arrintu tahay ka weyn tahay dalku badbaado u baahan yahay muusa laba sano oo hay'ad dalka waxa muuqata dalkii inuu soo ururiyo hareeraha ka soo ururiyo gudihiina ka furfumayo meesha wadanku qaabasa waxaan sharci ahayn idna aqbal maysan qofku sharci gamciisa ku qaato maha magaalo waxaan jeclahay insha Allah taala soo jeediyay marka wax isku yimaadaan odayaashana uu soo jeediyay marka soo nimaadno in shir badbaado qaran la sameeyo aan ma doonayno inaanu after 20 areas ila wada sameeyno Soomaaliland burburto oo wax misqaala darada ku burburto oo qof awood ku burburto madaxweynaha ku burburto waxa jirta in mas'uul ka tirsan xisbigaagu ilaa imika uu xiran yahay ma ka wada hadasheen maxaa ka soconaya ee xal ah sidee baad soo aragtay xariga siyaasiyiinta habeen hore ka wada hadalnay madaxweynaha oo yiri ninkan maxaad u haysataa inaan intaas la iskriinayay markaan shalay tahay war soo daamada ninkan wixii waa seedigay dhaaf arumaha seedigay soo dhaxgalbiyo waxaan door wax xogeeyahaygi dibada wixii waxyaalahaas isku haysan ay dhaaf seedigay marxaatiyaas la fadhiyo waxa jirtay warar sheegay in adiga laftigaaga dacwad laga gudbiyay inkasta oo aan maqlay inaad ka wada hadasheen oo ka heshiiseen anigu madax imay soo galay dacwadaas laakiin wax ka xun bay ugu sameeyay madaxweynaha uu la dagaalamay 27 bisha aan qarinay dalka dantiisa aan ka ilaalinay malaw maqal xafiiskiisu kula dagaalamay hooyadina caay intuu igu soo toray dhalo hooyada waxa ku sameeyay wiil laadna kula soo orday laakiin waxaan leeyahay sheegin laakiin hadda waa sheegin maxaad markaa keenay inaad isku dhacdaan ama gacan isku qaadaan arrinta waxa isku keenay ninka la yiraahdo ramax yani ramax waaran baa loo soo jaray wixii waa sharci waxaan sharci ma hadda caynkaas noqoto dawladda inuu isdaafacnaa marka idinka waxa tihiin xisbiyadii mucaaridka ee la xisaabtami lahaa dawladda ee loo irkan lahaa baa tihiin dhaliisha dawladda maaragtay ee indhaha ku hayn lahaa lagu xisaabtamayay inay bedelaan maxaa marka idinka idin meel yaala maxaa idin qorshaysan rasmiye la idin kaga tala gali karaa waxa weeyaan madaxweyne ma ogolaan in la xisaabtamo in la taliyo in la shaqeeyo in la karisaas gareeyo wax laga sheego ma ogola madaxweyne xajiis waan istilo anaga ma doono dalkayga martaba dagaal soo ka dhaca maanta hadana noqdo warlord uma diyaariyay marka talan isku noqono waa talan reer Soomaaliland bay tan taagan tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe ayuu kaasi ahaa waxa se dhageystayaal naga xasuusina in eedaynta uu sheegay injineer Faysal aanan ilaa haatan wax cadeyna u haynin walina aanu ku daba jirno in aanu xog buuxda ka helno iyo waxay ka oranayaan xafiiska warfaafinta ee madaxweynaha Somaliland